xiritaanka shirweynaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga kulmiye madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaanka sare xisbiga kulmiye wasiiro siyaasiyiin aqoon-yahan qurba-joog diblomaasiyiin iyo haween iyo marti sharaf kale shirweynahan ayaa muddo 2 maalmood ka socday caasimadda Hargeysa iyadoo laga soo saaray qodobo lagu dhiirigelinayo dhalinyarada Soomaaliland iyo horumarka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madasha waxa hadal ka soo jeediyay xubno ku hadlayay ergooyinka ka kala socda 14 gobol ee garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye iyagoo ku dhawaaqay qodobada shirka ka soo baxay ujeedada shirweynaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye wuxuu ku saabsanaa sidii ay dhalinyarada xisbiga kulmiye jamhuuriyadda Soomaaliland uga doodi lahayd falanqayn iyo aragti ugu yeelan lahayd qorshaha iyo barnaamij siyaasadeedka shanta guud ama sano ee soo socda ee xisbiga kulmiye dalka ku hagi doono haddii uu tartanka ku guulaysto gaar ahaan arrimaha khuseeya dhalinyarada haddii la yiraahdo sidii dhalinyarada xisbiga kulmiye jamhuuriyadda Soomaaliland uga tashan lahayd uguna heli lahayd habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee lagu abuuri karo qormayaal kor loogu qaadayo midnimada wadaniyada iyo wax wada lahaanshaha guud ahaan ee Soomaaliland iyo gaar ahaan dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland sidii dhalinyarada xisbiga kulmiye qorshe uga yeelan lahayd hanaanka iyo istiraatiijiyada olole doorasho ee madaxtinimo sidii dhalinyarada xisbiga kulmiye u abuuri lahayd isdhexgal isbarasho iyo isgarabsi xooggan sidii dhalinyarada xisbiga kulmiye ugu arinsan lahayd sidii ay aqli manfayo iyo taageero xoog lagu siin lahaayeen xukuumadda xisbiga kulmiye ee talada dalka haysa ergooyinkii garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye waxa ay uga mahad celiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo in xukuumaddii xisbiga kulmiye ay door mug leh iyo xilal badan ka siisay dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland ergooyinkii shirweynaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye waxa ay ku bogaadiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland go'aankiisii ahaa inuu dalka ka dago isaga oo dhamaystay hal muddo xileed isaga oo xaq u lahaa in uu galo tartan doorasho mar kale waa tallaabo wanaagsan iyo qaangaadnimo hogaamineed oo sarreysa ergooyinkii shirweynaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye waxa ay u cadaynayaan ururka iskaashi goboleedka IGAD midowga Afrika jaamacadaha Carabta midowga Yurub Mareykanka qaramada midoobay iyo guud ahaan dalalka adduunka oo dhan in jiritaanka iyo madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland tahay lama taabtaan iyo arrin aan gorgortan iyo wada hadal toona geli karin waxa kale oo bulshada caalamka ku booriyeen in ay ku abaal mariso shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhistay qaran barakaysan ee nabadda iyo deganaanshaha mandaqadaha geeska Afrika iyo gacanka cadmeedba qaybta lixaad leh ka soo qaatay aqoonsi iyo garowshiyana u helo qadiyadiisa ergooyinkii shirweynaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye waxa ay si mug leh oo aqoon dheeri ku dheehan tahay u eegeen kor u qaadida midnimada iyo wadaniyada dhalinyarada reer Soomaaliland waxaanay ugu dambeyntii shirweynihii ka soo saareen baaq midaysan oo ay xisbiga kulmiye iyo xukuumadaba kaga codsanayaan in hadda iyo qorshaha shanta guud ee xisbiga kulmiye lagu daro qormayaal iyo ololayaal kor loogu qaadayo barashada wadaniyada iyo dal jacaylka ergooyinkii shirweynaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye heer qaran waxa ay dood qoto dheer ka yeesheen xal u helidda caqabadaha hor yaala dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xalka macquulka ah ee dawo noqon kara ergooyinkii shirweynuhu waxa ay soo jeediyeen talooyin xal mudakar ah oo dawo u noqon kara caqabadaha jira horseedi kara shaqo abuur hor leh awood shaqo gal oo xoog leh tayeyn waxbarasho caafimaad helista maalgashiyo dhalinyaro iyo fursado hor leh oo dhaqan dhaqaale oo cusub talooyinkaas oo dhammaantood qayb ka noqon doona barnaamij siyaasadeedka cusub ee shanta guud ee soo socda xisbiga kulmiye dalka ku hagi doona hadii la yiraahdo ergooyinkii shirweynaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye
waxa ay soo dhaweynayaan dhammaan maalgashiyada shisheeye ee xukuumadda xisbiga kulmiye talada dalka haysa soo jiiday muddadii ay xilka haysay ergooyinka shirweynaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye waxa ay xurmo iyo sharaf ugu hayaan xukuumadda xisbigooda kulmiye iyo dhammaan shacabka iyo ganacsatada jamhuuriyadda Soomaaliland dareenkii xoogganaa iyo taageeradii degdega ahayd ee ay ugu fidiyeen dadkii deegaanada abaaruhu saameysay jamhuuriyadda Soomaaliland ergooyinka shirweynaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye waxa ay dhaliil u soo jeediyeen qaabkii bulshada caalamku u qaabishay abaarta ka jirta dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gacantoodii gudnayd waxay ugu baaqeen bulshada caalamka in ay gacan muuqda ka qaataan arrimaha jawaab buuxdana ka soo bixiyaan baaqii xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa shirweynuhu qaadaan lacageed oo dhan $10,000 ugu deeqay deegaanada abaaruhu saameysay ee dalkeena hooyo ugu baaqayaan dhammaan dhalinyarada xisbiga kulmiye meel kasta oo ay joogaan in ay si firfircoon uga qayb qaataan gurmadka abaaraha waxa ay si buuxda u taageereen go'aankii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ahaa in doorashada dalka ka qabsoonto xilligii hore loogu asteeyay sidaas daraaddeed waxa ay baaq luxdan u direen dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku kala nool gobollada dalka iyo dibaddiisaba kaasi oo ay kaga codsadeen inay ku taageeraan in xisbiga kulmiye sii hayo hogaaminta hayinka ah ee dalka wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirasaaq waa bari Rooble siyaasi Cabdicasiis Maxamed Soomaale xogayaha guud ee xisbiga kulmiye Xasan Saciid afayeenka xisbiga kulmiye Xasan Gaafadhi gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Murudijeex Maxamed Iid Dambiil aqoon-yahan Maxamed Cali Bile iyo Xasan Waraaba Cadde iyo aqoon-yahan Cali Maxamed Cali ayaa madasha ka soo jeediyay hadallo lagu garab istaagayo isla markaana lagu dhiirigelinayo dhalinyarada Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa jagada madaxweynaha xisbiga Muuse Biixi ayaa tibaaxay waxaynu haqbaliyo luxdan u diraynaa shirweynaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye ee shalay maanta soo gabagaboobay iyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliland kaalintii mugga leh iyo xoogga leh ay kaga jiraan qaranka Soomaaliland waxaa kaloo inoo badan inaynu dalkeena midayno sida baaqka ku soo saarteen oo aynu hoos u dhigno kala qoobnaanta kala shakiga qabyaaladda gobolaysiga oo aynu ku wada qaadano Soomaaliland taas aynu dareemaysid waxaa kaloo inuu maqaana inay dhalinyaradu maskaxdooda geliyaan oo ku aamiyaan siday u noqon lahaayeen hal abuur shaqo hal abuur siyaasadeed hal abuur horumarineed iyo wixii lamida waxay u baahan yihiin oo annagana u waajiba dadka xilkaaya markuu qofkii dhalinyarada hal abuurka keeno inuu helo cid iga heli lahay ee ka dhegaysan lahay ee wax kala qaban lahay annagu dhinacayntaasaanu balan qaaday idinkana hal abuurkaada ka raba markaasay horo maray madaxweyne ku-xigeen maanta halkan xisbiga waxaa ku soo biiray nin culus oo walyaana oo la yidhaahdo Maxamed Cali Bile oo ka yimid Algeria oo maanta caddeeyo xisbiga ka yahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa inuu xisbiga kaasi maanta ummadda xubnihiisa waaweynaa waa macdaynaa mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sheelic madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa yidhi noo balan inaan dal iyo dad mid dhisno waxay noo balana inaynu himiladeena aynu hiigsanayno iyo qarankeena shaqada tagsan jiray ee halkan ku soo gaaray awalba kala wadaadka iyo isku tiirsiga iyo wada qabsi ku soo gaaray maanta oo aqoontii aqoon-yahano badan oo Soomaaliland soo dhalinyartii oo ka mid yihiin 10 sano u dambeysay oo soo baxeen waxay noo balana inaad wada noqotaan waxay gaaladu u yiraahdaan activist dad u wada heegan oo maarta u halgamaya sidii noo walba qarankaasi qodxaha u yaalo oo qaali lahaa sidoo qarankaasi u garab qaban lahaa
sidoo qarankaasi meel u gaadhsiin lahaa isagoona cid kale xil ku eegin sabab waxaanay halkudhegeenu yahay heesta ninka wadani uu qaado xumaha dhaafaha wanaagga dhisaha wixii dhacayaba dadkiisa haya taasay noo qorana ridwaan caydiid ismaaciil akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan caasimadda hargeysa.